السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan idin ahaantiin meel kasta joogtaan waxaan idin rajeynayaa inaad iska nabad qabtaan caafimaad qabtaan. insha allahu tacaala maanta waxaynu ka wada sheekeysan doonaa mowduuc runtii aada u gudub ballaaran ee muhiimna ah noloshana marka la eegayana ee qeyb weyn ka qaadanaya ama la odhan karayo waxyaabaha qofku sida dabiiciga ugu baahan yahay. Ee, waxaanu ka warramaynaa insha allahu tacaala aan ka wada sheekeysan doonaa wax loo yaqaano alcalaaqa. Ee, culimo badan ama researcho fara badan ayaa waxay wax ka qoray oo wax ka sheegay waxyaabaha xanuunadan loo yaqaano psychological illness ama xanuunadan mentalka ee maskaxda ku dhaca ay ka mid yihiin werwerka iyo walbahaarka iyo stresska iyo waxaasoo dhanba in ay sabab u tahay waxyaabaha sababa ay ka mid yihiin wax loo yaqaano individualismka ama keligiis-nimada. ilbaxnimada reer galbeed ayaa waxyaabaha ay dhashay waxaa ka mid ah ama globalizationka caalamka intaan ku noolnahay ayaa waxyaabaha uu dhalay intaajaadka ka soo baxay waxaa ka mid ah qofku inuu noqdo qof fardaani ah oo keligii socda. keligii socda waxaa laga wadaa qofku inuu yidhaahdo intuu meel cidlaa dego ama perception ah inuu qaato aamino inuu cidna aan u baahnayn keligii inuu isku filan yahay. ilaahay subxaana watacaala min xikmat illaahi waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana watacaala inaga dhigay ummad ku tiirsan oo barbarka kale uu ku tiirsan yahay. ilaahay subxaana watacaala wuxuu inaga wada dhigi lahaa wada madax ama jabayna ugu yeeleen, laakiin min xikmat illaahi albaaliqa ilaahay subxaana watacaala wuxuu inaga dhigay madax iyo mijo. madax iyo mijo markan ka wada maaha madaxweyne iyo raciyad, laakiin waxaan ka wadaa nolosheena oo dhan marka adeegtid waxaan nahay dad isku tiirtiirsan oo barbarka kale ku tiirsan yahay. waxaa laga yaabaa waxaad adigu ku fiican tahay waxaa jirta waxaad ku fiican tahay waxaad ku xun tahay marka waxaad helaysaa qof waxaad ku xun tahay ama waxyaabaha weaknesskaaga kaba halka adigu waxaad ku fiican tahay aad ku wanaagsan tahay oo qof kale weaknesskeeda yahay markaa dadku ay iskabaan. haddaan marka aanay jirin cilaaqaad iyo xiriir weliba caafimaad qaba haddaanay jirin ma imanayo markaa inay dadku hoos istakaamulaan isdhamaystiraan ama isweheshadaan ma imanayso. ilahi subxana watacaala fi suurati zukruf wuxuu kaga warramaya ilahi subxaana watacaala ku leh naxnu qasamna baynahum maciishatan fi lxayaati dunya naxnu qasamna baynahum maciishatan fi lxayaati dunya. ilahi subxana watacaala muxuu saa u yeelay liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya say barbarka kale shaqaale ugu noqdaan. culimadu waxay tilmaamaan in ilahi subxaana watacaala markuu abuna aadam abuuray uu jannada geliyey jannada uu dejiyey ilaahay subxaana watacaala jannada wuxuu ku diyaariyey wax kastoo qof bini aadan u baahdo ama wax kastoo nabiyullaahi aadam ugu baahnaaba ku diyaariyey. haddana culimadu waxay tilmaamaan in uu jannada nebi aadam ku cidlooday sidaa daraaddeed ilaahay subxaana watacaala uu abuuray xawaa. ujeedooyinka uu ilaahay subxaana watacaala inooga dhigay lab iyo dhadig waxaa ka mid ah inaynu isweheshano oo istakaamulno isdhabaystirno. waxaa kaloo ka mid ah inay bini aadamku tafiirmaan. ilahi subxana watacaala culimadu aayadan ay ku fasiraan aayadan ilahi subxana watacaala leeyahay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله سبحانه وتعالى cilladii muxuu ka dhigay litaskunuu ilayha say ugu degtaan. culimadu waxay tilmaamaan maa min sakan waxay yidhahdaan ma jirta bay yidhahdaan xasilooni qofku uu dareemo meel allaale meel kale dunida ku dareemi jirta ilaa iyo zawjo maahaan. marka ilaahay subxana watacaala xikmadiisay ka mid tahay inoo yiri litaskunuu ilayha inaynu isweheshano oo aynu magarasa aynu is-ilaashano. marka haddii aanay jirin calaaqaad ama xiriir caafimaad qaba maleeshiyo caafimaad qaba ma imanayso deganaanshahaas. insha allahu tacaala mawduucan markaan aan leeyahay waa muhiim wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fitrada biniaadamka ku abuuran qofka biniaadamka inuu lahaado xiriir marka uu farxad helo ciduu farxadda la qaybsado markuu murugo helo ciduu murugada la qaybsado. waxay yidhahdaan culimadu qofku marka uu farxad helo wuxuu jecel yahay dadka u dhow dhow ama asxaabtiisa ama qaraabadiisa ama dadka xubka la leeyahay inuu la wadaago. ujeeddadu la wadaagaya waxay tahay in farxaddaasi ay usii saa'ido oo lala qaybsado. waxay culimadu farxadda marka la qaybsado way sii saa'idaa halka murugada qofku markuu murugo waxyaaba dhacdooyin murugaha helo ama waxyaaba ka murugaysan markuu helo markuu dadka la wadaago dadka uu la wadaagaya dadka u dhow dhow xiriirka weyn la wadaago
ay murugada yaraato wuu ku nafisaa bay culimadu tilmaamaan. Eh, insha allahu tacaala markaa mawduucaas waa mawduuc aad iyo aad u guda ballaaran. Eh, qofkuna waxay tahay inuu ogaado eh, meelaha uu ku wanaagsan yahay xiriirku, meelaha uu xiriiradu waxyaabaha ay ku xoogeystaan, isteyjada ay maraan, heerarka ay maraan, noocyada xiriirada, waxaasoo dhan qofku inuu ogaado. Xiriirku keliya maaha xiriirka labada jinsi ka dhexeeya, xiriirku intaa uu ka guda ballaaran yahay insha allahu tacaala arki doono. oo xiriiradu waxay noqon karayaan xiriir aad xitaa xiriir aad naftaada la leedahay. Xiriirka aad naftaada la leedahay wuxuu soo hoosgeliya calaaqaadka ayuu soo hoosgeliya. xiriirka aad rabbigaa la leedahay ama spiritual relationship wax loo yaqaano wuxuu soo gelaya calaaqaadku soo hoosgelaya. Marka waa mawduuc runtii marka si loo eego dabeecaddeena ku abuuran, laakiin aad muddo dadku inay aad iyo aad u muugan yihiin. oo qofku waxa laga yaabaa inuu dabeecad gooni ah, hal dabeecad gooni ah inuu dadkoo dhan kula wada dhaqmo. ilaahay subxaana watacaala dee faraha saasaanu sinayn baana aynanu sinayn, qof kasta dabeecad buu leeyahay, mawjad buu ka hadlaa. Marka waxaa laga yaabaa qofku inuu isdhaahdo hal dabeecad dadka oo dhan kula wada dhaqan. Deetana maxaa imanaysa waxa laga yaabaa qofkaas waxaad jeceshahay inay tahay dadka oo dhan kula wada dhaqan, laakiin adigu mawjadda aad ka hadlaysid ama waxaad jeceshahay aad danaynaysid waxaad neceb tahay waxa laga yaabaa dadka kale kugu hareeraysan ama qaraabadaada ama dad kale xiriirka aad leedahay inaanay danaynaynin. Marka haddaanad qof walba aanad aqoon waxa uu ku wanaagsan yahay, xiriiradii aanad baranin qaabka ay ku xoogeysanayaan, way adagtahay qofka in xiriirkii sii jiro uu sii waaro, way adagtahay. Marka runtii waa mawduuc sidaas u guda ballaaran. maaha inaan idinkaga aqoon badanahay oo aan leeyahay aqoon badan baan ka leeyahay. keliya waxaan jeclaystay wixii ogaalkayga ah ee aan isleeyahay waad garanaysaa inaan ka wada sheekaysano aan idinla wadaago. insha allahu tacaala mawduucan markaa wuxuu noqonayaa hordhac buu noqonayaa. intaanan markaa mawduuca dhammaynin waxaan jeclahay inaan ku daro xiriirada iyo qaybihiisa. xiriiradu waxay maraan stagey maraan, sidoo kale waxay leeyihiin noocyay leeyihiin. culimadu waxay tilmaamaan calaaqaadku marka laga hadlayo waxay ka kooban waxay u qaybsamaan laba qaybood. culimada qaarna saddex bay ka dhigaan. culimada saddexda ka dhigaysa waan arki doonaa say saddexda uga dhigtay. waxay yidhahdaan culimadu calaaqaadku waxay u qaybsamaan calaaqa qofku uu la leeyahay rabbigii ama waxa loo yaqaano spiritual relationship, iyo calaaqo uu qofku la leeyahay makhluuq. marka culimada saddexda ka dhigaysa waxay yidhahdaan calaaqada qofku uu la leeyahay makhluuqa ayaa laba u qaybsanta. waa calaaqa bidaat ama maca daat, calaaqo qofku naftiisa la leeyahay ama xiriir uu naftiisa la leeyahay, iyadana waan arki doonaa insha allahu tacaala iyadoo ka faahfaahsan. iyo calaaqa maca alghayr, oo calaaqa uu la leeyahay basharka intiisa kale, makhluuqaadka intiisa kale. oo makhluuqaadka intiisa kale maxay noqonayaan? dadkii bay noqonayaan, waxaa soo gelaya bey'adii baa soo gelaya, xayawaankii noolihii oo dhan baa soo hoosgelaya. insha allahu tacaala marka mawduucan saan horey ku sheegay hordhac ayaan ugu talagalay. mawduucyada kusii xiga ayaan kaga warrami doonaa calaaqaadka qofku spiritual relationshipka, calaaqaadka uu rabbiga la leeyahay, iyo sida ay gaaladu u aragtay si muslimku ay u arkaan kala duwanaansha labada aragtiyood. laakiin ay tahay iyo waxyaabaha ay ka midaysan yihiin. waxaan ka warrami doonaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin, waxyaabaha ay ka midaysan yihiin, basharka oo dhan ka midaysan yihiin. sidoo kale waxaan ka warrami doonaa calaaqada bidaat nafta ku saabsan, qofku naftiisa xiriirka uu la leeyahay. waxaan kaloo ka warrami doonaa calaaqada qofku la leeyahay basharka intiisa kale. aad baan idinka mahad celinaya waqtigiina qaaliga ah ee aad furteen inaad daawataan barnaamijkan. intaasaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.